haddaan iska warramo magacayga waxaa la yidhaahdaa georgi kapchits waxaan ka imid ama ka imaday magaalada moscow ee ah xarunta dalka ruushka aan ku noolahay muddo 25 sano ah ayaan ka shaqaynayay idaacadda moscow maalin kasta waxaan oran jiray halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio moscow laanta af soomaaliga kusoo dhawaada wixii war ahaa ee adduunka naga soo gaaray marka idinka waxaad tihiin dad da'yar ma xasuusan kartaan laakiin aabayaashiin ayaa xasuusan codkayga weli marka qof odaya anigu aan la kulmo waa adiga buu yidhi codkaaga waa weli waan xasuusanahay muddo 50 sano ah in ku dhow ayaan af soomaaliga baranayay misna baarayay weli waa si baranayaa waayo af soomaaligu waa merge oo kale oo hadba daanka loo jiido u jiidma af sahlan maaha wadag tahay in si fiican loo barto aniga soomaaliga waxaan ku bartay dalka ruushka gudihiisa ee kumaan baraan soomaaliya haddii aan soomaaliya aan tegi lahaa markaan bilaabay barashada af soomaaliga afkayga waa si wanaagsanaan lahaa iminkana waxaan oran lahaa afkayga soomaaliga ahi cayrin ma aha bisaylna ma aha waa inta u dhexaysa waa yacya-ooda kale wey saas baan oran lahaa anigu